maalin walba waxaa taga Soomaaliya ka dega dad reer Somaliland oo halkan taga gaar ahaan isaaq dadka isaaq beelaha isaaq ka soo jeeda taga dadyo kale dhibaantaha qaar baa jira Soomaaliya qaar baa jira sagariga Soomaaliya inkastoo Somaliland ay xuduud leedahay haddana dadka horta loo jeedo dadka isaaq maalin walba qaar baa ka dega hadda aragto qof ka dega Soomaaliya oo xil u doonta oo qof halka ku fashilmay runtii burco Somaliland horta sida lagu soo baxaa way adag siyaasad ahaan iyo fan ahaan sida lagu soo baxaa way adag Somaliland marka qofka siyaasad ahaan ku fashilma ku siiyo booska waayay wuxuu tagayaa Soomaaliya loo camriyaa inkastoo dadka halkan qofka qiimeyn iyo waxtarkiisa ayaa dal lagu eega talabaad lagu qofka halka lagu doorto waxa weeye qabiil وين قف لقرنا يوقظه وين أدركها دولة هروقة السنة وين بيش إنك أوقش هاي ساس بقى صبح كرت لو مرحلة بقى صبح كرت تفنكت هذا نوع حيوي هل كان جدد هلا أقول لا تشوجا قف وقال ما قف كستوى فنك يسا مقرأ يسا هسيس الحدود من قف صار كرا السجن صار كرا حاجة فنك قف هل كان كتجا الصومالي تجا وقف تسوي بحوي مركز الصومالية سياستهان يفنهان لبض بورق صباحية سيدا مهدي جولد يو إلى دبي أبو بكر عثمان دبي وفر كتجا وصباحية وفق عدنا كسر دوانو سياسيين تا الصومال لا كتجا الصومالي تجا وحوي وقف marka hore waxaan lahaa ka soo bixi waayay Somaliland oo cid xudi bawey halkaas uu tagaya markii uu soo baxay caam soo noqonay laba ujeedo buu halka dadka raqooyiga ee ka taga Somaliland ee Soomaaliya taga laba ujeedo leeyahay hadda aqal ka shaqaysiisan laba ujeedo waxay tahay koob qof soo bixi waayay inuu soo baxo ay Soomaaliya u taga oo dawlad soo dhaweynaya way og qofka raqooyiga la jecel لتعلي هاي أوجي هاي ولا سود وينيا والله أركيني ما أنا بين بلاس كوشة كيني حولنا يا دورتا كتسان حوي بينه وقوي عين متلاو قلنا يا بين تاس وكوشة كير وقف كأي قادنيا تلبادو حي وصلش غسنيا حقيقة نيكا وقوي جاهي سوكو أنكر رابين أيوز كده يعني كل ترى كدبنا أنتو كاسو شقيستو أيو برعاية هرجسة عامران يدرسانية صوب وصانية إمسا سياسي وجدين أنتو يقصوا شغاستي هلا كوصنوا وحاول تبين نك قادح لهذا يعني كي أبير وهاي تري بالك هنا وهاي تري هنا كاسو بقى أبير هرجسة كل متري ما قاعد يسوى الغصان هاي دبان في فيديو كوسو دريا ديان تانس وحلا مركا حويان قفكا كفرت كدغا لبا وجيدون بلي رقويغا كو انو صوبخو ينو كسو شقيست مركا waxayaan lagu soo sabin qoomiyadaan matala wacankan dalku Somaliland uu leeyahay koow guurti uu leeyahay baarlamaan uu leeyahay madax uu leeyahay wasiir uu leeyahay hadii dadkan ay rabaan madaxda ee dalka hoggaankiisa haday hayaan ay rabaan dad macquul ah soo dirsan lahayn marba inay soo bixi waayay oo yar baaqtay dad badan ka siyaasadda ku fashil marka ka digay marka idinka waxa san lagu sheekeeyay idinka waxa soo qaadanaysa horta اعترافكنا waa ka Ilaahay qofka Ilaahay kula wado iska hagaagaysa amaan adisho horumarkana step u gaaraysa step ayadu gaaraysa كحويان يتكون أنا هايستا أنا قلنا واسكا وطننا أنت وحالك ورونا يا كان ما تستفتان بحارت أنا بعيد عن عيبها هي مجرتو سومالي وهذا السومالي ذا والبدل اللي يرضى يا كم تحي أنت سوحة هي سكايت كفتن استفتان يسكت تروبه ترى إذا قلت بيا قصة تطوب يا واحد تحي dadka imka nool laba qaybood qaybna waa dadka waaweyn ee ugu yar yahay dadka waaweyn ee ku tirtirka ugu yar yahay
qaybna wixii aniga ladkayga iyo wixii la afartanka wasa dhalinyarada marka waxa la yahay odaydii hore eelkay dhigeen waxa la yahay xinta eel la reeb odaydii hore ee kala qoqob iyo qabyaaladii qurun bay keeneen eeshay reebeen waxa weeyaan dadkii inay isnacayb dhex dhigeen iyo qabyaaladii qabiil ay kaga tageen marka waxaan leeyahay dhalinyarada 2021 lagu jiraa adduunyada way horumartay adduunyada hore u socotay wadamada ugu liita waa wadamo aqoon ahaan horumaray marka waxa ka soo dhalinyaro qabiilo iyo beaches iyo adigu social media wareejinaya waxa kale qabiilada ay qulka laga ilbaxo hal noqdo aqliyan iyo aqoon ahaanba horumarsan waxa tukul jooga waa maalmahan in la iskaga raaxaysto horumar la gaaro fiicanta marka adeenu qulniga qabyaalada ay wadno iyo dagaal aakhirana ku fashilmayna marka waa inay noqdaan labada meeloodba guulka gaara waa inay noqdaan dhalinyarada waxa la yahay ka tanaasulo qabyaaladu aad bay xuntii qabiilku tamraabiskan jafitaankan labaad ku kulmayno qaybta labaad marixaan reerka leeyahay jafaya inta video waxa ku kulmay doona waxa niga tagaya bye bye